warshadee wadankaaga. bismillaahi raxmaani raxiim. warshadeyntu waa wadiiqada ugu wanaagsan ee lagu kobcin karo wax soo saarka wadanka iyo dhaqaalihiisa. dagaalada sokeeye awgeed waxaa jiray caqabado aan u suura gelinaynin warshadeynta sida korontada oo qaali ah, maqnaashaha nabadda iyo la'aanta laamaha sharci dejinta. laakiin maanta waxaa muuqata yididiilo dhanka qiimaha korontada oo hoos u dhacay, deegaano badan oo ay nabadi ka jirto, iyo shuruucdii kala hagaysay ganacsatada oo badankoodii la meelmariyey. marka waxaa lagama maarmaan ah inuu dadaal wadareed dhex maro dowladda, ganacsatada, bangiyada dalka ka jiro, hay-adaha waxbarashada, mujtamaca diyaasbarada, mujtamaca dalka joogay, kuwaasoo dhan inay dadaal wadareed sameeyaan si ay warshadaha u kobciyaan insha allahu tacaala. waxaa maanta jirto fikrado cusub ay qurba joogtu keentay oo wax weyn kusoo kordhiyay warshadeynta iyo khayraadka dalkeena, kuwaasoo maalgelin ka helay ganacsatada dalka joogay. tusaale ahaan waxaa jirto shirkadda saafi ee soo saarta malabka ee kusoo kordhisay dalka shinni dhaqashada casriga ah, taasoo u horseeday inuu dalku soo saaro malab dabiici ah oo aad u fara badan oo horey aan loo arag. shaqo abuur iyo dakhlina u abuuray mujtamaca beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gaar ahaan. shirkadda waxay jadwal u samaysay xilliga ay ubaxeeyaan dhirta ay shinnidu malab ka samayso ee dalkeena. dhirtaas oo ay ka mid yihiin dhir daawo ah sida quraca, khansaxa, jeerinka, cadaadda, gobka, sarmaanta, bilcilka, xararka, xamurka iyo dhir kaloo aad u fara badan oo dalkeena leeyahay. taasna waxay u suura gelisay in shinnida loo raro ama loo musaafiriyo deegaano badan oo aan hore shinnida looga dhaqan, sida gobolka galgaduud, deegaanada ceel buur, ceel garas, ceel shiil, dhuusamareeb, gurayaceel, xarar dheere, cadaado, cabuud baaq iyo sidoo kale gobolada hiiraan iyo gobolada shabeellada hoose, baay iyo bakool iyo baar dheer. goboladaasoo awal ka hore beeraha aad uga bixi jireen, kuwaasna maanta waxaa laga keenaa jirigaano aad u fara badan oo malab ah. waana taas ilaahay nicmadiisa. dakhli iyo shaqo abuurna ay u samaysay deegaanadaas. shaybaaro oo caalami ah oo turkiga iyo imaaraadkana waxay caddeeyeen in malabka soomaalida uu yahay malab aad u tayo badan oo tayadeeda iyo caafimaadkeedu aad u fiican yahay. marka haddii anaga aan Soomaali nahay, Soomaalida qurba joogta ah iyo kuwa dalka joogayba waxaan nala gudboon inaan iibsano ama aan iibgeyno waxyaabaha dalkeena ka soo baxa sida malabkan ama warshadaha yaryar waxa ay soo saaraan, inaan macnaa aan anaga isticmaalno, aanna u iibgeyno wadamada aan anaga martida ku nahay. sida aad ogtahay malabka Yemanta waxa qaaliga ka dhigay waa Yemeniyiinta qurba joogta ahaa oo ugu sheekeeyay dadka tayada malabkooda. taas ayaa sicirka kor u qaaday. mujtamaca Asiyaanka waxa lagu yaqaanaa inay dhiirigeliyaan warshadaha wadankooda oo ay mar walba adeegsadaan waxyaabaha laga soo saaro dalkooda, taasoo u horseeday horumar dalalkooda ah. ugu dambeyntii dowladda waxaa muhiim ah inay dhiirigeliso warshadaha dalka oo canshuurta ay ka dayso sanooyinka hore, sida ay warshadahaas yaryar cagahooda ugu soo istaagaan. badanaaba ganacsatada yaryar ama warshadaha yaryar waxay u baahan yihiin naas nuujin intay cagahooda uga soo istaagayaan, oo in canshuurta laga dhaafo ama canshuurta laga yareeyo, taasoo u suura gelinaysa in warshadaheena ay khubad yeeshaan. maxaa yeelay qaaradda Afrika isbedel weyn ayaa ku soo socdo. waxay saxiixeen inay Afrika isla ganacsato si xur ah. marka Soomaaliyana qayb weyn ay ka tahay qaaradda Afrika. marka haddii aan warshadaheena ku dadaalno inaan hore u marino, waxaa noo suura gelinaysaa inaan gacanta sare ku lahaano suuqan weyn oo Afrika ah. جزاكم الله خير. waxaan jeclahay inaad ka faa'iideysateen. waa Baazi Xaaji Busuri oo horumar ummadaada idinkaga soo hadlayo. waxaa kaloo isku soo dibiriday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. جزاكم الله خير.